بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله موضوعنا maanka waxa uu ka hadlayaa takhasuska iyo in uu qofku takhasus u yeesho field gaar ah gaar ahaan ardayda jaamacadaha dhigata oo kale ay arintani muhiim u tahay inay wax badan ka ogaadaan diinta islaamka soo aragtaa qofku inuu takhasus yeesho ama waxa takhasuska la yiraahdo say u aragtaa waa arin muhiim u ah موضوع كان waxaa igu dhaliyay markii aan aqriyay kitaab uu leeyahay ninka Napoleon la yiraahdo oo kaga hadlayo yani qofku soo lacag ku sameyn kara ama business yani guuleysta soo ku sameyn kara oo kaga hadlo fakir tusbix ghaniyan yani thinking and grow rich ba maaragtay boog la magac baxay laakiin soo Carabi la tarjumayna waa uu jira luqado badan loo tarjumay waxaan ku arkay marka safaxaadkiisa ama pageskiisa eray cajiib oo oranaya dadka wax ku takhasusay ee xirfad gaar ah takhasus gaar ah u leh ba maanta loogu baahi badan yahay waxaan isleeyahay ninkaas gaalka ee erayga alihi aad bay ii saameysay marka hore haddana waxaan isleeyahay baltalo diinta islaamka sidee bay iyada lafteedu takhasuskaas u aragtaa inuu qofku cilmi walba baranaya una oran laakiin takhasus gaar ah u yeesho arintaas arin aad muhiim ugu ah marka hore ardayda dhalinyarta ah hadii aan hordhac uga dhigo oo jaamacadaha dhigta waxaad arkaysaa arday diploma qaatay oo field ku qaatay haddana qaatay degree oo ku qaatay field kale oo tii hore ahayn master thesis mid kale ku qaadanay aad moodaa inagu marka waxaan mar walba wax ku qiimeynaa xaaladda ka jirta gaar ahaan waxaan ka hadlayaa dowladda Soomaalida dhalinyarta wax ka barata waxay xaaladda joogta ay ku qiimeeyaan dawladda cabdi dadkii joogay xaaladii joogtay wax lagu qiimeynayo oo ahayd in mustawaqa lagu shaqeeyo in sideed lagu shaqeeyo in maaragtay qof aan aqoon lahayn iyo garasho in maaragtay la isku shaqaaleysiiyo adana alxamdulillah tii waa laga soo waaqsaday maanta waa aragtaa qof waliba waxa lagu xidhayaa inuu haysto ka ugu yar inuu degree haysto iyadoo laga yaabo in waxyaabo badan jiraan haddana wax badan baa isbedelay marka dhalinyarteen mar walba waxay wax ku qiimeeyaan xaaladda jirta taasina waa dhibaato weyn يعني qofku mar walba meeshan ma joogayo sida wadamo kale u tagi kara sidoo kale wadankiisa isbedel baa ku dhici kara marka filliga uu dooranayo yani waxay saameyn ku yeelanaysaa mustaqbalkiisa sidaas darteed inuu mar walba waxaan wax ku qiimeynay waa xaalad iyo maaragtay xaalad markaa jirta ayaan wax ku qiimeynaa situation markaa jira saas darteed waxaan raadis dhahay talo islaamku takhasuska muxuu ka aaminsan yahay sidoo se u arkaa takhasuska arintaas waxaan u baadi goobay kitaabka uu leeyahay Raaqib Sarjani ee ka hadlaya aqoonta iyo ummadaha sida uu dhiso waxa uu markaasi doctorku tilmaamaya oo wax badan meesha ku sheegay in diinta islaamka takhasuska ay aad u soo dhaweynayso insha Allah buugaana mar ayaan rabnaa inaan soo bandhignay balse waa aragtiyo kamida aragtiyaha markii maaragtay takhasuska aan bal raadisay meeshii ugu muhiimsanayd ee wax laga sheegay marka koobaad yani waxaan horeysiinaa bal kitaabka quraanka ah yani diinta islaamka laba shay ba maaragtay sal oo ah kitaabka quraanka iyo xadiiska nabiga kitaabka quraanka iyo sidee buu u arkaa ama aragtiyaha ku jira ee qofku xirfad gaar ah intuu u yeesho shay inuu xirfad gaar ah iyo takhasus gaar ah inuu xirfad intuu u yeesho lagu qiimeeyo oo dadka loogu horeysiiyo sidee buu maaragtay u dhigay iyo afkaar noocee ayuu quraanku tilmaamay yani suuratu baqara quraanka waa wada dhigateen waxa lagu sheegay nin boqor ah oo Taalut la yiraahdo nabigiis dadkii marka xilliga joogay baa nabigoodii waxay ka codsadeen in ay boqor mideeya ay maaragtay oo dooro marka nabigu waxa uu dooray ninka Taalut la yiraahdo quraanku sidoo sheegay laba shay baa ninkaas lagu doortay yani quwwa fil jism wa awood jir ahaan inuu lahaa sidoo kale ninkan inuu lahaa aqoontaas markii ay culimadu wax badan ka eegeen waxay sheegeen aqoontaas inaysan ahayn kaliya aqoontii shariicada ama markaas cilmigii iyo diintii nabigaas waday inaysan kaligeed ahayn balse ay uu aqoon u lahaa oo uu xirfad u lahaa hogaaminta iyo dagaalka iyo maamulka qaabka wax loo maamulo iyo sida loo jebiyo cadawgaaga ama maaragtay ciidanka ka soo horjeeda taas inuu aqoon u lahaa taasina waxay tilmaamaysaa in maaragtay kitaabka quraanka ah uu soo dhaweynayo qofku inuu takhasus leeyahay qofkii takhasus uu leeyahayna in dadka kale aan u lahayn isaga laga hormarinayo waa arin aad maaragtay cajiib ah oo waxa la moodayaa xiliyadii nabiga iyo diinta xilliga ay soo degaysay inuu takhalluf jiray
balse iyadoo practical ayay jirtay principleska hadda field walba ka qoran oo practical ayaa jiray laakiin aan markaasi si maaragtay aan u qorayn manhaj ahaan ah oo maaragtay hadda sidii jaamacadaha loogu yimaada laakiin iyadoo practical ayay jirtay waana uga jeedaa aayadda iyo maaragtay sida maaragtay ay u tilmaamayso nabigaas waxa uu ku dhahay inna allah qad ba'atha lakum taluta malikan ilaahi talut ayuu malik iyo nineen hogaamiye idinka dhigay waxaana lagu doortay labadaas arimood ayaa lagu doortay marka dadkaas xilliga waxay moodayeen in xoolaha iyo mansabka iyo waxa kan lagu noqdo boqor iyo qof dad hogaaminaya balse labadaas shay ayaa loo sheegay oo uu takhasusku ka yahay arintaas waxa ka sii cajiib badan arinta oranaysa yani marka uu fiirsato nabi yuusuf markii xabsiga ka soo baxay la ogaaday in lagu qaldamay waxa yani uu boqorkii markaa joogay ku talagalay inuu soo dhaweeyo maaragtay nabi yuusuf dabeetana dawladda maadaama nin fiican yahay uu dawladda qayb ka noqdo maamulkeeda iyo taliskeeda waxa cajiiba nabi yuusuf markii la soo bandhigay arintaas in uu dhahay يعني meeshuu doortay iyo mansab meeshii uu doortay oo asaga uu yiri halkaas aad maanta ku haboon tahay ayaa cajiib ah waxa uu dhahay waxa dhiga dhigtaa يعني maaliyada wadanka aniga iyo dhibiil dhaqaalaheeda si aan u ururiyo xisaabiyo u kantaroolo muxuu markaas laba arimood bay isku sheegay koow horta wuxuu aaminsanaa oo uu soo arkayay inuu takhasus u leeyahay xoolahan iyo maamulkooda iyo sidii uu kantarooli lahaa laba shay buu sheegay mid waa aaminad maanta shirkadaha adduunka ka jiray waxa buugaas ninkaasi uu leeyahay Napoleon oo ku qoray oo uu lahaa yani aqoonta qofku shahaado inuu haysto tayo leh waxay shirkaduhu ka doorbidaan oo ay ka horreysiyaan mar walba inuu yahay qof aamin ah sidaa darteed nabi yuusuf wuxuu horreysiyay inuu yahay nin aamin ah oo xafiid ah oo ummadan iyo dadka uu wax u qabanayo si aaminada wuxuu qabanayo oo khiyaamaynin wuxuu markaas ku daray nin xaliim oo cilmi labaan ahay cilmigii markii dib loo baaray waxay noqotay in laga wado cilmiga shareecada in laga wado iyo cilmi kale zaa'id oo aqoon u leeyahay oo ah cilmi al-ilmi iqtisaadi ama cilmiga dhaqaalaha ayaan aqoon u leeyahay ayuu leeyahay nabi yuusuf taasna takhasus gaar ah ayaan u leeyahay ayuu yiri isaga ayaana sheegay wuxuu yiri inni xafiidun alim taas waxay tilmaamaysaa qofku inuu takhasus gaar ah iyo wax uu ku fiican yahay oo maantana takhasus gaar jaamacadaha ay u yeeleen in uu maaragtay diintu ay ogashahay ayay tilmaamaysaa insha Allah mawduuca halkaas ayaan ka sii wadi doonaa mawduuc la magac bixi doona hadii Ilaahay yiraahdo diinta islaamka iyo takhasuska aragtida ay ka aragto ama waxay ka aaminsan tahay xalaqaadka dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa saxaabadii nabiga iyo saxaabadiisa iyo nabiga sidoo uu qaybin jiray dadka siday ugu kala tayo badan yihiin iyo siday waxa la qabanayo ugu takhasus yani takhasuskooda ugu kala badan yahay ayaan arki doonaa hadii Ilaahay yiraahdo barnaamijkeena intaan barnaamij lamida ku kulmaynana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh